maanta oo maalin jimco ah bishuna ay tahay 22 November waxa Ilaahay mahadiya subhanahu wa ta'ala in aan kula kulanay halkan wafdi aad u qiimo badan oo ka yimid Puntland hadday noqon lahayd ganacsatadii dhalinyaradii iyo culimadii aqoon-yahanadii wasiiradii lama soo kala harin beledweyn musiibadii ka dhacday marka dhinac kale loo akhriyo waxay noqotay kulmiso waxay kulmisay ummad muddo dhawaan is arkin ummadii Soomaaliyeed meel walba ay joogto way damqatay meel walba ay joogto dareen ay wadaagtay waxa soo baxday maanta in ummadda Soomaaliyeed horena u ahayd weligeedna ahaan doonto ummad walaalo ah ahla mid ah isku diir ah isku damqasho ah waxa ila joogo Sheekh Fuad oo kamid ah culimada Soomaaliyeed oo wada garanaysaan waxaan rabaa inaan sheeqa weydiiyo ka hor inta aan ganacsatada iyo dhalinyarada u gudbin mar haddii aad timid magaalada Beledweyne kow maxaa ku baxay dareenkaaga ee marka labaadna maxaa tala ah in naseexa aad u soo jeedin lahayd guud ahaan dadka reer Hiiraan gaar ahaan dadka reer Beledweyne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشا عبد الفتاح هذه أدبا أمهات سنتهي مركه هوري waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabad keenay Beledweyne noo fududeeyay shaqooyinka aanu nimid marka labaad waxaan rabaa si guud inaan ugu mahad celiyo dadka reer Hiiraan gaar ahaan reer Beledweyne gaar ahaan intii shaqada si gaar ah noola sii gashay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa runtii Beledweyne waa magaalo barwaaqo ah waa magaalo weyn oo taariikh leh waa magaalo wabiga Shabeelle u maro waa magaalo dalag fara badan oo u ka soo baxo oo dadku haday nabad helaan iyo maxaan ku leeyahay iswalaalaysi iyo isjeclaan iyo inay dadku gartaan inay xamaashaan waa meel qof walba u fadhigiisa ku dhargi karo waa meel dad fara badan oo Soomaaliyeed qaadi karta waagi horena mug u lahayd inay dadkaas qaado sidaas daraadeed magaaladan intaas oo dhan ba isku haysataa dhibaata ka dhacday waa run dad Soomaaliyeed oo fara badan ba isugu yimid marka runtii magaalo qurux badan waaye oo hatta kilibyadiina laga duubay dadkii markay arkeen qaar badan ba waxay ku duceysteen Ilaahay Beledweyne marige quruxdeeda markay arkeen marka taladaydu waxay tahay reer Beledweyne iyo reer Hiiraan guud ahaan waxaan kula talinayaa inay gacmaha isqabsadaan inay walaaloobaan nabiga sallallahu alayhi wasallam يعني وحوي وحير مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد هل جروي مؤمنينتو وحال ربا هل جر إنay noqdaan oo sida nabigu u sheegay sallallahu alayhi wasallam ay noqdaan oo ay ka fogaadaan wax alla wax burburinaya mujtamacu inay bulsho isku xiran ay noqdaan almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan وشبك بين أسابعه نبي صلى الله عليه وسلم وحيري مؤمنك كله وحيري سيدا دستا أو كله oo ay labada dhagax ama labada maxaan kula blokeetay ama maxaan kula hay labada labanadood ay soo adkeynayaan nabigu sallallahu alayhi wasallam fariisu isu dhaxgaliyay yani saas oo kale ay isu celinayaan way marka reer Hiiraan iyo reer Beledweyne waxaan kula dardaarmaynaa in ay dad iswalaalaystaan noqdaan in colaadaha Soomaalida soo dhaxbaray oo gobolkana ka jira inay ka heshiiyaan inay isu yimaadaan inay wada fariistaan إلهي سبحانه وتعالى وحول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مؤمنين تأمبا ولا لا هذه مؤمنين وحده حمرانا ولا لمدي هجاجيان ليري إني ولا لمدي هجاجيان إني ما رفتا وحد حمراي كحالان إني كوضة فريستان إني إسسامحان إني إسلا بحار نادان محايا لي runtii ma sahlana nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu la taxqarana min al-ma'ruf shay'an walaw an talqa akhaka biwajhin taliq yani waligaaba ma'ruf hayaraysan haba ahaato inaad walaalka umuusotid u dhoola birtid u ilka cadeysad qof bas u yaqaano marka waxa la rabaa in farxad la isugu yimaado farxad lagu wada joogo maarata maxaan ku leeyahay wax la wadaago nabigeena sallallahu alayhi wasallam nimanka ashcariyiinta la oran jiray oo Muuse uu ka dhashay wuxuu yiri innahum minni wa ana minhum sababta uu nabigu dadka u yiri ana kamid iyaguna waa iga mid oo u jeclaaday inuu qabiilkooda kamid noqdo waxay ahayd dad waxay ahaayeen marka sahaydu ay ka sii gabagaba tahay waxay haystaan intay isu geeyaan si isleeg ama igwala u qaybsada ay ahaayeen nabiguna uu ku amaanay sallallahu alayhi wasallam marka bulsho walba oo wax istarta bulsho walba oo wax wadaagta bulsho walba oo tala wadaaga bulsho walba oo midnimo leh wax walba way jeeri karaan biyaha waa xiri karaan
dhulka laamiyey ka dhigi karaan wuxuu yidhi afyare hadduu baarigeennu isu tago buuruhu jabin xoogga haddii laysu geeyo buurta waa la jiiraya wadi ka arkay adduunka waxyaabay aniga iigu yaabadnaa adduunka intaa maraya waxay ahayd inkastoo laga yaabo la ii sheegay kuwa kale oo ka waaweyn inay jiraan waxaan ka safray magaalada liya Malmo oo Sweden ku taala waxaan u socday Copenhagen oo caasimadda Denmark waxaan maray badda dusheeda maraakiibta hoosteeda marayaan bridge baa laga dhisay badda dusheeda ah saan u dul socday bridge-kaas ayaan tunnel galay haddana oo badda hoosteeda maraya markaas waxaan ka soo baxay Copenhagen ama Copenhagen say u yaqaanaan ayaan ka soo baxay yani waxa dadka samaystay kuma dhalan sancada loo jeedaa waxa weeyday xasareetiyo raga dagaya guudkeena yani dayax iyagoo degan lama arag laakiin aqoon baa la taransaday midnimo la taransaday wada jir baa la taransaday dhaqaale la taransaday tabeetana wax walba waa la jiiray ya ma ujeedaa dhigeen weeye nimanka dayaxa soo dhudhumiya kuma dhalan sancada iyo waxay kala dhigayaan ya dhabada noloshu waa ciid oo lagu dhaqaaqa waxaanu joognaa wabigi Shabeelle hadii qof walba uu godintiisa qaato uu qoto uu dhargaya reer Hiiraan reer Beledweyne waa dad goba waa dad sharaf badan waa dad aad iyo aad wanaagsan waa dad qiimo badan waa asad ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waxa nooga dhiman kaliya inay ka shaqeeyaan inay walaaloobaan inay wada hadlaan inay gacmaha isqabsadaan in xoogaagii hore u dhacay waxa la yiri walaalka haday candhuuftaada gaarto gacantaadu hala jirto yani waxa weeye inay waxa la rabaa wixii hore u dhacay dhaahiyaan dabeetana ay ummad meel u wada socota oo tala leh oo midnimo leh oo meel u wada jeeda si ay ummadda Soomaaliyeed oo dhiban ay iyagu markaa u cifiyaan oo gacanta u qabtaan reer Beledweyne iyo reer Hiiraan mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahad celinayaa waxa weeye Beledweyne Ilaahay balaayada ka ilaaliyo subhanahu wa ta'ala ya Ilaahay meel barwaaqo ah ka dhigo waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala intii ku dhimatay ha u naxariisto intii hantida ku weyday Ilaahay badal khayr qaba ha siiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala biixbaxda danba ha ka ilaaliyo reer Hiiraan tala ka dhimana Ilaahu talada wanaagsan solansi Ilaahu talada wanaagsan solansi Ilaahu wax naga farxiyo naga maqashi aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa walaalaheen goba oo sharaf leh oo aan qadarin u hayno oo ummadda Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhiya hadaysan ogeyn iyagu weeye wallah subhanahu wa ta'ala a'lam jazakallahu khayran aad ayuu mahadsan yahay waxa sidoo kale wafdiga kamid ahaa walaalkeen gudoomiyaha rugta ganacsiga Caydiid Maxamed Caydiid isna waxaan rabaa inaan weydiiyo Beledweyne waa timid 6 maalmoodna waad joogtaa gurmadna waad ku timid wixii Beledweyne kaaga baxay iyo reer Beledweyne waxaad u dardaarmi lahayd بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد waxaan halka ka salaamayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed mar labaadna waxaan salaamayaa gaar ahaan ummadda reer Beledweyne oo aan martida u nahay runtii Beledweyne waxay ku taallaa goob istiraatiiji ah waan sooran karno waxaan xagga ganacsiga maadaama ahay gudoomiyaha rugta ganacsiga meel il dhaqaale u noqon karto ummadda Soomaaliyeed dhinac waxay xuduud kala leedahay Ethiopia dhinac kale waxay ku dhowdahay ama xuduud la leedahay caasimadda Soomaaliya oo wax yar u jirto dhinac waxa ka xiga gobolada galmudug iyo ka sii dambeeyaan Puntland marka waxaan soo ragnaa goob istiraatiiji ay ku taala runtiina waxay aad iyo aad door uga soo qaadatay gedislayda ganacsatada Soomaaliyeed xilligii burburka oo waxay ahayd meesha kaliya xoolaha Soomaalidu ay ku kala wareegaan badacada Soomaaliyeena la keeno taas marka waxa dareemaysaa inay ahayd meel aad iyo aad muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed waxaan kala runtii anigu Beledweyne waa markii ugu horeysay oo aan gudaheeda imaado berigii caasimadda Soomaaliya jirtayna waxaan mari jiray xagga laamiga waxaan u hooyin jirnay habeenkii meesha la dhaho Janta ku dishay waxa mara wabi ilaahay uu ku manaystay waan isleeyahay wuxuu ku filnaan karaa ummadda Soomaaliyeed gebi ahaanteed waxa ka soo baxa gobolka Hiiraan waxa kale oo leedahay runtii bulsho aad u fara badan oo waxa ka jirta tiro badan oo bulsho ah ayaa ku nool aan isleeyahay waxay ku jirtaa gobolada ugu badan Soomaaliya xagga tirada dadka waxaan dareemayay markaan magaalada dhex mareynay sida dadku raxan ugu soconayaan meel cilaan aan u jirin intaas marka la isku daro waxay runtii tahay meel aad iyo aad muhiim ah waxa ka abuurmi kara ganacsi xooggan waxa ka abuurmi kara talo ummaddu wadaagto oo ummadda Soomaaliyeed lagu hogaamin karo waxa ka abuurmi kara inay tusaale u noqdaan ummadda Soomaaliyeed gebi ahaanteedba
runtii waxyaabaha aan isleeyahay beledweyne aan kula talinayo waxaa ka mid ah sidii sheekh iga horreeyay uu sheegay wax kasta waxay ka abuurmaan ama ka asaasmaan midnimada haddii midnimo la waayo horumar ma jiro isjacayl ma jiro caqli bini aadam oo shaqaynaya ma jiro intaba waxaa asal u ah horumarka iyo wax kastoo aan rajaynayno inay ummaddu midowdo oo waxda ay timaado waxyadaasoo ku salaysan mid caqiidada aan waxba yeelayn mid aan horumarka wax yeelayn mid aan mujtamaca qaybtii dusha uga baxayn laakiin ah mid ku dhisan cadaalad iyo horumar intaba odaygii la talinayay wiilashiisa oo isugu yeeray 5 wiil uu dhalay ayaa wuxuu u dhiibay mid kasta qori ayuu u dhiibay ama caday buu u dhiibay wuxuu mid kasta cadayga ha jabiyo nin kasta si fudud ayuu u jabiyay laakiin markii uu isku xiray cadayadii oo 5 caday mideeyay qof dhaqaajiya waa la waayay waa jabiyay ayaa la waayay taas wuxuu tusaale uga dhigay in ay tahay midnimadu qof jabin kara aan jirin marka shacabka reer Beledweyne waxaan kula talinaynaa inay midoobaan dadku waa walaalo qabyaaladu mugma leh waa sida basasha qofba marba xub baa dhacaya marka daba meel cilaa ay ku soo dhacaysa hadii qabiil yiraahdaa inaga reer hebel ah iyaga si kala guraya kuwaasna waa si kala gurayaan jufu ay soo canaystaa ilaa ay bah hebel iyo bah hebel gaadho oo labadii walaalaha ay ku kala tagaan marka dugsi meel qabyaaladii waxay dumisay mooyaane rasuulka sallallahu alayhi wasallam laha ka tagay qabyaalada waa qurune marka qabyaaladii in laga tago ayaa waxay tahay runtii tan Beledweyne aan u rajaynayno inay taa ku milmaan waxa kula talin lahaa Beledweyne inay abuuraan dad acayaan ah oo dadkooda birimigeedada ah aqoonta leh aqliga iyo diinta isku darsaday jecel ummadooda inay horumarto inay dadkaas talada wax ka siiyaan oo ay abuuraan gudiyo horumareed si ay u dhismaan wadooyinka magaaladu si dhibaatada ka haysata wabiga ay meesha uga baxdo oo loogu gudbi lahaa aqliga la iman lahaa in wabiga wax laga qaban lahaa dadku haday isku tashadaan runtii waa tujaar baan oran karaa dadka reer Beledweyne waayo qof aan heli karin ama beerer intuu qoto ama dhulka aan wax ku beeran karin oo aan beertiisa wax uga soo bixi karin oo aan nolol maalmeedkiisa halka ka heli karin ma jiro taas xooli baa jooga oo waxaan dareemanaa geeli iyo loodii iyo arigii iyo inta la yiraahdo ishinka la isku yiraahdo dhamaantood inay ku wada dhaqmi karaan Beledweyne oo ay taas taagnaana meel ku haboon arrimahaas oo dhan marka waxaan kula talinayaa reer Beledweyne inay aqligooda koriyaan Soomaalinimada ka shaqeeyaan horumarka ka shaqeeyaan iskarabsadaan istaageeraan intaasuna ayun baa kula talinayaa aad iyo aad baa mahadsantahay billahi tawfiiq waftigii ka socday Puntland halkan gurmad ka keenay aan ugu magac darnay Hiil Walaal Beledweyne markaanu nimi shacabka reer Hiiraan waxaanu kala kulannay gobonnimo si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen aftaax su'aashiisa ahayd Hiiraan maxaa kaaga baxay Hiiraan wax badan baa iga baxay meel sida rag iga horeeyay sheegeen aad u wanaagsan laakiin maanta waxaan u jeednaa walaaleen Hiil Walaal baa jooga Djibouti waxa jooga Ethiopian Soma marka waxaan leeyahay Hiiraan anigu kelmadeyda ku soo koobaya waxaan leeyahay reer Hiiraan dalka ma u gargaarnaa dadka ma u danaynaa dunida ma gaarnaa gaajada ma duugnaa qani ma u dilaacnaa qarannimo ma doonaa qursiga ma diidnaa markaan leeyahay kelmadaas waxa weeye waxaan diidanahay in ciidan kale oo walaalaheen oo Afrikaan ay nala joogaan waxaan rabnaa inagu inaynu midnimadeena ka shaqeyno dawladnimadeena ka shaqeyno waa ognahay oo Soomaali waxa weeye haddii dawladii siyaad barre dhacday dadkii waa la iscunay waa la kala tagay qabiil baa la noqday wixii in laga gudbo waxa weeye qarannimo qofku inuu wax ku yahay and I believe dadkan reer Hiiraan halkan jooga magaaladan kaliya Beledweyne waxa la sheegay milyan dad ku dhow inay ku nool yihiin waxa la sheegay 4 magaalo ee ugu dadka badan inay ka mid tahay Beledweyne daysan tan saddexaad ama labaad baa haynba marka waxaan leeyahay walaalayaal aan isku xirnaano qarannimo wax lagu helaa aniga kan la hadlaya waxa dhacday qarannimadu inay dahab tahay inii sheegaya waxaan ka yimid Mozambique waxaan transit ku ahaa wadankan Kenya Nairobi Jomo Kenyatta waxaan soo galay 2 duhurnimo waxaan ka baxay 8 dambe oo subaxnimo oo maalintii dambe ah dadkii la socday Afrikaanka ah ee walaalaha iyagu intay gudaha galaan oo ka soo adeegteen bay waxa weeye meeshaydii anoo fadhiyo kursigay igu soo laafteen
marka waxay ugu soo dhacday tix ay ka mid ahayd rabbow qarankaan lahayn qarribno qabyaaladii noqotay qiilka iyagoo qaxooti ahaanay qiimo dilmo isqoonsannay oo iswada qadafno isqoorgoyno iswada qalannay rabbow quwaddaada noogu qareen oo qarankayagii dib noogu qotomi marka waxaan rajaynayaa inaynu qarankeenna iyo midnimadeenna iyo wadajirkeenna iyo walaalnimadeenna aynu ka shaqayno hiiraan aad bay u mahadsan tahay waa gobol aad u wanaagsan asalaamu calaykum aad iyo aad kelimada qiimaha leh ee runtii wacnayd ustaad saqar uu noo soo jeediyey kelimadan kale dardaaranka waxaan ku soo gabagabeynaynaa shaaciisa oo isaga reer hiiraan iska dhigo reer beledweyn waa markii labaad oo gurmud u yimaado marka shaaciisa waxaan leeyahay bal maxaad tookadan iyo tookadari ku kala duwanaayeen taladaada soo maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم الله سبحانه وتعالى مهدس كله مهدس أبك جدال وحنا مهنقيا maamulka iyo shacabka iyo dhammaan bulshada reer Hiiraan ama Hirshabeellaba si gaar ah waxaan u mahadnaqaynaa walaalihii reer Beledweyne oo runtii si fiican oo qiimo badan noo soo dhaweeyay wixii aan rabnay ama qabanaynay ama hadiyadii aan wadnay ka timi Puntlandna si wanaagsan oo aanu sidii ugu quruxda badnayd ah noola qabtay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin runtii waxaan anigu ay tahay markii labaad aan imaado reer magaalada Beledweyne labada jeerna waxaan ku imi isku munaasabad magaalada oo dhiiqa leh iyo biyabax uu jiro dadkuna ay banaanka joogaan baa labada jeer baa ilaahay ku soo aadiyay waan rajaynayaa insha Allah in marar badan oo dambe waysan dhiiqana jirin maaragtay dhiiqadood marba nimco tahay aan biyabax jirin baan leeyahay inaan imaan waan rajaynayaa ilaahay idinkiis waxay kala duwan tahay waxa ugu weyn hadii labada biyabax isma leekayn biyabixi hore biyabaxan waa uu ka yaraa waxaan isleeyahay dareenka ummadda Soomaaliyeed ama dareenka ummadda muslimka oo markaa la siinayay ama sida loo kargaranayay saan uu ka weynaa uu ka yaraa baan leeyahay hadda waxa indhaha caalamka ayaa ku soo jeedin sida ayaan oran karaa gurmad xoog leh ayaa ka yimi Puntland oo kii hore ka xoog weyn waftikii hore ka culus baa yimi waxa yimi culimo badan oo meelo badan ka timi oo gurmad wada oo hadda uu ugu weynaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal waxa hadda soo socda dawladda waaweyn baa soo gurmaday oo yimi waagaas aan anagu imaanaynay xitaa dawladaha qaybtooda hay'ada ka socday xogaa ay wadeen waa laga joojiyay runtii dadku fahmi waayay 12 kiilo laakiin hadda raashin miisaan la ayaa soo socda ama hadda yimi marka kala duwanaanshuhu waxaan isleeyahay nafteeda khibradda xaggeeda dadkii reer Beledweyne habka shaqooyinkan emergency-ga oo culus oo uusan qof walba ka shaqeyn karin runtii shaqadan cid u tababaran maahe inay intii hore ay ka sii horumarsan yihiin waan isleeyahay talooyinka markaan u gudbo aan kula talin doono waxyaalaha aan isleeyahay ka dhiman yihiin inahaas waa ii muuqata waxyaalaha isbedelka ah dhanka talada waxaan reer Beledweyne kula talinahaa waxaan horeysiinaa horta reer Beledweyne inay istixgeliyaan iyagoo horta ictiraafaan Beledweyne ictiraafto madaxda ictiraafaan culimada ictiraafaan aqoon-yahankooda ictiraafaan marka iyagu is ictiraafaan oo runtii ay isu dhagan nuglaadaan caqligii waa buuxa aqoontii waa buuxda culimadii waa buuxda laakiin dawladdii iyo systemkii way joogaan wayna shaqaynayaan waxayse u baahan tahay in systemka iyo cid walba kaalinteeda lagu tixgeliyo lana siiyo taan odhan lahaa magaalada Beledweyne oo runtii magaalo weyn ah isla markaana mashaariicda horumarineed magaalooyinka la midka ay helaan aan helin waxaan kula talin lahaa golay deegaanka la dhiso waa suurtagal sababaha ay u dhismi waayeen inay tahay sababa ama qabiil wax la midka ah waxaan codsan lahaa ama soo jeedin lahayn magac reerka ugu badan oo isla maanta idinka ugu badan inay tanaasulaan golaha deegaanka ku tanaasulaan oo reerka ugu la isleeyahay ama tirahan bay ugu yeerihiin loo dhiibo oo halka ay ka dhalato golaha deegaan oo marmarsiyaha ah mashaariicdii horumarinta ay uga maqan yihiin la waayo oo jidadkii la dhiso oo dawladda hoose iyo ciddii ku shuqul leh marka ay kaalinteeda laga rabay ay kabto